taliyaha ugu sareeya ciidanka militariga Turkiga ayaa safar gaar ah wuxuu ku tagay Muqdisho waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya isagoona kala hadlay tababarka dowladda Turkiga ay siinayso ciidamada Soomaalida ee lagu talagalay inay qayb weyn ka qaataan sugidda amniga goobaha lagu talagalay in lagu baaro ama laga baaro shidaalka Soomaaliya. saraakiisha Turkiga ayaa kulan gaar ah la qaatay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan ciidanka Turkiga iyo saraakiishii wafdiga ee ka socday Ankara kuwaas oo ugu dambeyn kulankan gaarka diiradda lagu saaray qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka guud ee la xiriira in xukuumadda Ankara ay ka shaqeyso sida ugu habboon ee xilliga loo gaari karo dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira arrintaasi. ila kala duwan ayaa warbaahinta Xuraansi waxay u sheegeen in maalmihii u dambeeyay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka dowladda Turkiga ay ugu falcelinayso arrintan iyadoona saraakiil iyo xubno ka tirsan Ankara ay sheegeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrintaasi si loo gaaro hadafka ugu weyn ee la xiriira dhismaha ciidanka guud ee Soomaalida si loo beesha laga saaro ciidamada Afrikaanka ee gudaha Soomaaliya ku jooga. Turkiga ayaa waxa uu sheegay in uu aad u tababari doono ciidamo qaas ah oo mustaqbalka dhow la wareegi doona mas'uuliyadda amnigooda guud waxaana uu sheegay in itus oo itaabsi ay yihiin tababarada ay siinayaan ciidamada iyadoo laga tusaale qaadan karo ciidamada gaarka ee booliiska Haramcad iyo sidoo kale ciidanka commandoska ee Gorgor oo ciidankaas qayb weyn ka qaatay howlgallada laga wado dhanka iyo gudaha Soomaaliya kuwaas oo mustaqbalka dhow la wareegi doona mas'uuliyadda guud ee amniga dalkooda. xubin sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Turkiga oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan dhanka taliska guud ee ciidamada dalkaasi ayaa bilaabay inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrintaasi. warbaahinta Turkiga ayaa waxay soo xigatay saraakiil iyo diblomaasiyiin iyadoona ugu dambeyn sheegtay inay wado dhaqdhaqaaqyo guud oo ku aadan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka siyaasadeed sida ay sheegeen mas'uuliyiin iyo xubno ka tirsan dowladda Turkiga. sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara waxa uu dhankiisa tilmaamay in hadda wax socdeeyeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira fulinta howlgalladaasi lagu sugayo amniga taasoo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta Ankara ay markaan cagaha u dhaqanayaan sidii ay u gaari lahaayeen hadafka ugu weyn ee ah in geedi socodka Soomaaliya gaar ahaan soo saarka macdinta iyo farsamooyinka kala duwan laga gungaaro si meesha looga saaro wax walba oo keeni kara inay curiyaamaan howlaha guud ee ka socda dhanka Soomaaliya. taliyaha guud ee Turkiga ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in hadda wax socdeeyeen dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul guud oo Ankara ay ku doonayso in ay ku gaarto hadafka siyaasadeed ee ku aadan in dowladda Turkiga ay ka shaqeynayso qaabka ugu fudud ee loo gaari karo soo saarka shidaalka iyo macdinta kale ee dalka ku jira. Turkiga ayaa 2026 bisha January waxa uu ku dhaqaaqi doonaa fulinta howlgalka lagu soo saarayo dhanka macdinta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan hadlana waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrintaasi taasina ay keentay in hadafkan uu noqdo mid siyaasadeed oo la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira isku dayada Turkiga ay wado waa dowladda Turkiga wado taas oo haddii ay suuro gasho ka dhigaysa xukuumadda Ankara in ay sameynayso abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ugu fudud in loo gaaro hadafkaasi guud ee dowladda Turkiga ay ku doonayso in lagu soo saaro shidaalka. saldhigyada ciidanka Turkiga ee ka sameysteen gudaha Soomaaliya dayax-gacmeedka la tuurayo xarumaha waaweyn diyaaradaha casriga ee Turkiga ee kuwa dagaalka ee dalka lagu sameeyay ee Soomaaliya la keenay waa waxyaabaha ugu badan warbaahinta Turkiga ay aad u hadlayso. dalal badan ayaa arrintaasi ka carooday. Mareykanka ayaa ka mid ah maamulka madaxweyne Donald Trump waxa uu jirtay lacagii uu ku bixinayay ciidanka Afrikaanka ee jooga gudaha Soomaaliya muddo 18 sano kadib waxaana arrintaas la sheegay inay qayb weyn ka tahay inuu ka carooday Turkiga waa inuu ka carooday tallaabooyinka muuqda ee Turkiga uu ka sameynayo dhanka Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaan jirin walaac la xiriira dhanka amniga ee ku aadan Soomaaliya taas oo keenaysa xitaa haddii ay baxaan ciidamadan Afrikaanka in ay qayb weyn ka qaadanayso dowladda Turkiga sugidda amniga guud iyo inay ka shaqeyso dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee la xiriira arrimaha sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga.
saraakiisha iyo mas-uuliyiintu waxay dhanka kala tilmaameen in hadda waxyaabaha socday yihiin kulamo gaargaar ah oo lagu xoojinayo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga sida ay sheegeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ku dhow safarka taliyaha ciidanka guud ee Turkiga ee Soomaaliya oo ku tagay wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku maasantahay daawashada iyo ku xirnaanta janaalkayaga.